xaflad ballaaran oo tababarkaasi lagu soo gabagabeynaya ayaa lagu qabtay xerada dugsiga Idris Faarax Cabane oo ku yaala duleedka caasimadda dalkani Djibouti waxaana ka soo qayb galay taliyaha sare ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliya General Bashir waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Djibouti Xasan Cumar Maxamed iyo taliyaha sare ee ciidamada gaashaandhigga ee dalkani Djibouti waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo isagu hawl shaqo u joogay dalkani Djibouti iyo wakiilka dowladda Soomaaliya u fadhida midowga Yurub iyo waliba saraakiil sarsare oo ka socota ciidamada shisheeye ee saldhigyada kule dalkani Djibouti ciidanka booliska Soomaalida halka lagu tababaray ayaa waxa sidoo kale u helinayay ciidamo ka tirsan ciidanka booliska dalkani Djibouti oo iyagu la fahaantooda tababar halkaasi lagu siiyo ciidamada Soomaalida ee tababarku ugu dhamaaday halka ayaa waxa ay ka soo bilaabeen halkii ay ku sugnaayeen gaada kacyaar ay ku muujinayaan tababarka ciidankaasi ay leeyihiin iyo waliba sida ay ugu diyaarsan yihiin hanaanka istiraatiijiyadeed ee ciidanimo markii ay soo gaareen goobtii lagu ballamay ayaa waxa halkaasi ka bilowday khudbadihii kala duwana waxaana ugu horeyn halkaasi hadal ka jeediyay taliyaha ciidanka booliska dalkani Djibouti Colonel Cabdullaahi Cabdi Faarax isagoo ku dheeraaday hawsha ballaaran ee ciidanka booliska Soomaalida hortaala waxaan maanta joognaa maalin xuseyno gabagabadii tababarka lidifii ee ku saabsanaa sidii wax lagu sugaa sidii lagu bari lahaa hawsha لأنني مريت سبب قبلتي وها ممتلئة وها عود صباحي جميلة بركة نستمتع عن هذا الشيء دون كيري وكملي وعكرا قول المرض قيمة عليه من لماذا قال لها أنا كنا قيمة بدلنا taliyaha ciidamada booliska ee dalka Soomaaliya General Bashir ayaa isna goobtaasi waxa uu ka jeediyay khudbad isugu jirta mahad celin iyo dardaaran oo ciidanka kula dardaarmaya intaba maanta halkaan sida loogu xiritaanka dafcadda tobnaad ee miyaditaan ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha Xasan Cumar Maxamed General Zakariya oo khabiirka af Soomaaliga ah iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Cabdi Faarax oo martigelinta akademiyada iskale muddo 10 difaacadood oo booliis ah ka soo saaray xaruntan aynu taagannahay taliyaha sare ee ciidamada Krenberieriga oo iyagu tababarkaani bixiya oo ka soo jeeda dalka Talyaaniga ayaa isagu waxa uu goobtaasi ka sheegay in dawladda Talyaaniga ay ku faraxsan tahay isbeddelka abni ee ka jira Soomaaliya isla markaana ay sii wadi doonaan tababarada ay siiyaan ciidanka booliska Soomaalida Mikael Cabdirashiid Bare Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Djibouti